qaar ka mid ah haweenka gobolka Togdheer ayaa taageeray musharaxiinta gabdhaha ee ka qayb galaya tartanka doorashooyinka golaha deegaanada ee dhawaan ka dhici doona gobolka Togdheer. Shir jaraa'id oo haweenkaasi ku qabteen magaalada Burco ayaa waxa ugu horeyn ka hadashay Hinda Jaamac oo ah musharaxad u tartamaysa golaha deegaanada ee degmada Caynaba ahayna gudoomiye hore ee ururka Now ee gobolka Togdheer. Hinda Jaamac ayaa waxa ay ka jawaabtay eedayn ay u soo jeedisay agaasimaha xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland maanta in taageerayaashaydu ay iigu yeedhaan barnaamijkan oo ay hogaaminayso nimcaciin naguna taageerayso aniga iyo gudoomisadii hore ururka Now iyo xubno ururka Now ka tirsan intaba Aamina Maxamuud Diiriye waxa weeyaan madaxa samafalka Soomaaliland ma aha madaxa Now ma aha xubnaha Now ma aha waxa weeyaan wuxuu qodow ma meeshii wax kugu jiraan baad qodaa mise meel walba waad qodaa may u lahayn xaq oo ma jawaabteedana may ahayn inay Hinda u jawaabto iyadoo aniga i weeraraysa run ahaantii waxaan qabaa inay wax dulmiyo tahay balse qofka bini'aadanka ahi aqoontiisa ayuunbuu hadlaa wax leeyin waliba kaskiisa ayuunbuu kor tagaa qofka bini'aadanka ana aqoontiisa ama maamulkiisa waxa lagu eegaa naftiisa garaadkiisu inta ay leeg tahay hadduu qofku maskaxdiisu ay taam u shaqaynayso wuxuu qaadanayaa wax la eg haddii garaadkiisu aanu halka uu la doonayo aanu gaarsiisnayn wuxuu qaadan karaa shay ka badan kaba ka badan oo uu faraha hore ugala dhaco shaar ka badan marka waxaan qabaa in shay ka badan uu kuu geliyo caqligaagu ayaan aaminay qabaa taa haddii aan intaa ku dhaafo waxa weeyaan waxaad xaq u leedahay in aad maadaama oo aad ka tirsan tahay xafiiska samafalka in aad ka jawaabto waxa samafalka yaala dhibaatada ka taagan waxaynu wada ogsoonahay maanta qaranka Soomaaliland musuqmaasuqii ugu weynaa meesha laga helay ee lagu qabqabtay lagu xukumay ay ku xidhxidhan yihiin waa xafiiska samafalka adiga ayaana ku magacaaban oo ah inanta samafalka maxaad uga hadli weyd waay miyaadan la socon miyaadan ogeyn miyaan xilkaa saarnayn naw xilkaama saarna Zainab Kacaan Nimcaciin iyo gabdho kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa taageeray haweenka musharaxiinta ee hankooda muujiyay kagama aanan tagin xumaan laakiin waa aanu danaysanay waxaanu doonay inaanu han la nimaadno inaanu asxaabta ku kala biiro inaanu hankayga musharaxnimo iyo hankayga taageernimo iyo hankayga maxay tooyeen qof waliba oo uu leeyahay halku doono uu galo taasina waa tii qof kasta oo muwaadin ahayd uu xaq u lahaa inuu isagu la dooran fariinta inay wada qaataan waan jecelahay inay inan walba isa soo sharaxdo awoodeeda iyo kartideeda soo bandhigto Hindana ay nala taageeraan ahaan haweenka kuna garab taaganahay kuna faraxsanahay halka ay gashay waxa weeye waxaan ahaa anigu ururka Now taageerayaashiisii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka mar walba dhinac taagneed baan ahaa iyagina markii labadaydii gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka dameeshii ay ka tageen wixii yaala ma jiraan oo anna waan raacay oo waan la tagay halkay qabteen baan la qabtay balse waxaan u sheegayaa inaanan dadkaas bulshada naga dambaysa inaanay iyagu aanay xagxagasho iyo ceeb iyo aflagaado midna aanay meesha oo qofku qof la raaysto oo raafa aanu ahayn qof ikhtiyaar leh inuu yahay sidoo doono uu yeeli karo halku doono uu ku biiri karo xisbigu doono uu raaci karo iyadoo dadkuna dadkiis la wada yahay haddana halku doono inuu ku biiri karo oo raaci karo xisbi alla xisbigu doono kulmiyaan ahaa ilaa maalintii kulmiye la sharaxay anigu kulmiyaan ahaa hadda wadani baan ahay anaad iyo aad waxaan baliyeynayaa Hinda oo ku soo biirtay xisbiga wadani annagoo horena kulmiye iskugu ahayn laakiin maanta ah xisbiga wadani waxaanan wadani ugu soo biirnay firfircoonida aanu ka aragnay xisbigaana Axmed Digaale Home Cable TV Burco.